markii la leeyahay jiis janno ma galo okay marmarka qaar waxaan isdhihi jiray walaalayaal Soomaalida waxay ku mahmahan mee waayeen okay malaakiin marmarka qaar waxa ku soo baxaysa inay sheekadu run u eg tahay sababtu waxay tahay ninkan aad u jeedaan taliye kaashay baa lahaa okay waa wada ogtihiin isaga iyo kan aad u moodid inay macaluul u dhaqtiyay ya ee 9 sano uusan afkiis wax saarin aad u maleysad bisku dhiiq inuu ku soo karay waa u maleysaa okay dhar la eg xitaa suuqa ma yaala ma ogtihiin dharku wuu soo tashtaa ileen wax la eg gibigiisa hadda labadan biri buu soo nuuray baa la leeyahay wuxuu ahaan jiray rar aqraad gabadha miskiinta ah ee waxa ku dhahay duruufta kaga faa'iideysteen isaga iyo kan maxaan ku dhahay madowga badan leh ee aad u moodid rar aqraadka okay gabadha waxa la leeyahay magaceedu waxa dhahay Saami Axmed waxa la yiri nin baa soo furay oo soo xumeeyay kadibna ayadoo banaanka yani I don't know yani duruuf yar baa haysatay kadibna waxa soo xareeyay kaashay ka dhahayaan kaashay markuu soo xareeyay meesha gurigiisa ku caawin jirtay jabi degan yani kamay qasnayn uu infaameysa sida qof caawinayo iska dhigay isla maalmahaas waxa imaaday baa lagu leeyahay kan aad moodid inuu aakhire ka soo xagaay baxay ya cuntaba aan weligiis la siinin aad moodid baa gurigiisa imaaday misana almuhiim markii kooban oo koomba lagu riday muuqaal bay ka qabteen baa lagu leeyahay gabadhi ha gabadhi miskiinta ahayd ee qariibka ahayd oo xitaa waxa ku dhahay isku meel kama soo jeedaan gabadhaana waqooyi ka soo jeedaa waliba boorami meelahaas ka soo jeedaa baa lagu leeyahay dadkan eegtana de waxa waay isoo sheeg dhinacan kale ka soo jeedaan okay almuhiim yaana warka idinku daalanay gabadhi muuqaal bay maalmahan warka la wareejinay oo la lahaa Malaysia qarxiski ugu weynaa ka soo socdo gabibu waxay iskugu soo biishabatay halkaas gabar ya Saami Axmed ku magac dheer koobda اللهم صل وسلم على نبينا محمد بس iyo maxaan ku dhahay labadan nin inay video ka duubeen ninka ugu horeeyay oo waxaan ku dhahay sheekada soo bandhigayna waxa waa ninkan la dhahay isoo sheeg taliye kaashay ha isagii baa gurigiisa waxa gabadha lagu soo qarxiyay oo wax ka duubeen isagii baa waxaan ku dhahay hadda afka umada ma aysan ogeenin maxaad umada ula hor imaanaysaa way iska qarsaneed ma iska qarisid yaa ku yiri soo bandhig ya mise waxa ku dhibaysa dhaqdhaqaaq yarka ay gabadhi soo binaysay inta umada ka soo horbax baxaysa iyo maxaan ku dhahay challenge-yada meelaha macnaha yani adiga ba suuqi ka saarabta ma is dhaxday maxaa qaldan ya warinta ilaahay fiir idagays abaayo gabadha la hayd Saamiya okay naag Saamiya la dhaho oo miskiin oo waxa ku dhahay jiricsan ma jirto adduunka soo waxa garteen maahan soo waxa gartay maahan adigan kula hadlaya muuqaalka lagu rakaateynay iyo wax la leeyahay soo bandhig dheh rag ila hadda waxa la rakaata lagu heestaayo waxaan ku dhahay waa loogu bootay maalin walba ya waxa ay siin soo daayre naag ceeb ma balaan bisacad laga bilaabo nimanka marka ay soo qarxiyaan waxay is dhahdaan nin ceeb ma laha nin cooro ma leh naagna cooro ma lahan yes hadda idin leenahay naag cooro ma lahan saacadaas wixii laga bilaabo waxay siin soo daayre okay farta doontiin aqriya dheh sidee lagu booteen karaa waxa soo laga ma qabanin qalaas yaa waxyaabo kale inta lagaaga darsan oo ku digaya okay meeshana waxaan ku dhahay is ilaali isku badnaa hadda xoogaa yar oo ku kala kacda kaliga isku day ina guri degtido waxaan ku dhahay jabi degan bilaa buuq oo tim yar aasuubsatid waa wuxuush caadi wariya ilaahay ka baqadee balaa idin ku dhiciyay baasan la aragay mid kale kana igu daran gaariga saaran markaan oo kale waxa lagu duceystaa alxamdulillahi alladhi aafani mimma ibtalaka bi wa fadalani ala kathiran mimman khalaqa tafsilan marka la arko qof oo wax ka siihiin ma ogtahay kama wada gabadha laakiin taliye kaashay baa ka wada waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala kursigu kugu fariisay baa qabtaa isku xisho bal ku dagtay baasan la arag gurigiisa baa gabadha lagu soo qarxiyay qofkii ugu horeeyo iyada oo la iska aamusan yahay afkii baa labada heestay maxaa ka soo jaqjaqsiinay oo gabadha maxaan ku dhaw soo ceebeysanaysaa saadaad